مقدشو وعاصمة جمهورية الصومالية waxay ku taalaa galbeedka badweynta Hindiya barisamaadkii waxay ahayd magaalo aad u qurux badan oo soo jiidata indhaha ummadaha gaar ahaan dalxiisayaasha maadaama saddexda jiho ay kaga hareersan tahay badweynta Hindiya Muqdisho oo sida lagu xuso taariikhda la aasaasay qarnigii labaad ee miilaadiga ayaa soo martay marxalado kala duwan waxaana muuqaalkii iyo bilicdii ay kula tartamaysay caasimadaha caalamka oo mar qura damay waqti qiyaastii laga joogo 27 sano dagaalo iyo siyaasado isdiidan oo ay magaaladu martigelisay sanado badan ayaa sababay in gabi ahaanba uu lumo maqaamkii caasimadeed ee magaalada iyo in ay burburaan adeegyadii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha magac ahaan wali waa Muqdisho waana caasimadii dalka laakiin muuqaalku uu ka duwan yahay mid caasimadeed Muqdisho magaca way ka simantahay laakiin waa magaalo aan war iska heen halkan aan ku suganahay ma ahan duleedka fog ee magaalada Muqdisho ee waa bartamaha wadada warshadaha oo dabcan kamid ah wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka dadweynaha ee magaalada magacayga waxa la yiraahdaa Sabaan Daar Maxamed waxaan ka mid ahay dadka aan degan xaafadan ee wadada warshadaha dariska la ah dabcan wadadan baahiyo badan aan ku qabnaa oo xagga dheerarka ah dabcan dhibaato badan ah jiro xagga waxa u maleynaa shaqaalaha si dawladda inuu gaabis ka jiro adeegyadii halkan lagu baahnaa badankood maysan soo gaarin dabcan waxaan codsan lahayn in macnaha la yarmaysan loo soo dejiyo wadadana la hormariyo sida taana bulshada loogu adeega jeclaalayn maamulka gobolka Banaadir waxaan ugu baaqaynaa in wadada warshadaha dabcan waa la dayacay wadadan waa la iloobay wadadan in aan la iloobin oo important in ay tahay Soomaaliya wadadan in la hormariyo oo macnaha sidii hore lagu soo celiyo leerka loo badiyaa dabcan jeclaanahay iftiin keer naguma filno in kasto ciriir uu yahay laakiin wala saga dul qaadanaa dabcan wax ka badan rajeynayna insha Allah xaafadaha marka qaar kullu isma halay kor amnigooda mobilada kala saga dafaa dhibaatooyin badan ka jiro ayadana dabcan waa jeclaanahay in la sii hormariyo laakiin wadadan hadda ka sii muhiimsan oo ayada dabcan wax laga bilaabi karaa dawladdu waxa laga rabaa dadweynaha iyadoo la helin dawlad la heli maayo iyadoo dadweyne la helin dawlad la heli maayo dadweyne muxuu u baahan yahay in dawladdu ay dayactirto ayaa loo baahan yahay dadku waa dayacan yahay amniga waa dayacan yahay nadaafadda waa dayacan tahay jidgooyooyin fara badan ay jira kuwa yaani oo dad yaani masaakiinta ka xoog badan jidgooyo ku sameeyay jidgooyo ku sameeyay dawladda arki karin oo ay ka leexanayso dadka jaabweynta ah dawladdu ay ka leexanayso awaamirta dawladda dadka masaakiinta kaliya dawladdu amarka farta ma farto dadka jaabweynta dawladdu ma furto jidgooyin fara badan aan hadda deegaanka aan deganahay rag badan oo jaabweyn oo jidgooyin sameysteen oo maamulka degmooyinkana ka raali ah jiro dawladdu ay ka raali tahay iyadoo arkaysa iska indhasaabayso dadka masaakiinta yay amrin dadka masaakiinta waa u hoggaansan dawladdu kuwa u baahan masaakiinta waa laga bilaabo sanadkii 2007 waxaa Muqdisho soo maray ilaa 8 gudoomiye kuwaas oo mid waliba magacaabistiisa kadib uu soo bandhigay qorshe uu sheegay inuu ku hormarinayo magaalada mana jirin mid ku guuleystay hanashada 17 degmo ee magaaladu ka kooban tahay marka laga reebo dhowr xaafadood oo ku heerarsan aqalka madaxtooyada kuwaas oo ku dhooda muuqaalkoodu ay bedelayaan tuurarka carooyinka darbiyada la siman iyo dhagaxyada shubka ah ee muujinaya xaalad dagaal iyo in magaaladu ay tahay goob uu ciidan isku horfadhiyo deeqa Cabdiqaadir waa gudoomiyihii hore ee degmada warta nabadda Ekis Wardhigley waxay qabtaa in maamulkii ay la soo shaqeysay xilligaasi uu meel fiican soo gaarsiiyay howlaha gobolka taas oo suuro gelisay in magaaladu ay martigeliso doorashadii dalka ka dhacday sanadkii 2012 haddii aan u gudbo gobolka Banaadir magacaan ka heena iyo muuqaal laakiin wax shaqo ah oo ka socota ma laha xilliyo badan oo gobolkan soo maray xilligii Sheekh Shariif uu madaxweynaha ah waxa ogtihiin 5 degmo in gobolkan laga hayay kadib 17 degmo gacanta lagu dhigay in doorasho ee ka dhacdo gobolka Banaadir waxa sabab u ahaa madaxweyne Sheekh Shariif iyo dadka xilligaas gobolka Banaadir ka soo shaqeynay ama taliyaal ha ahaadaan ama gudoomiyaal degmaha ahmaadaan ama gudoomiyaha gobolka Tarsan ha ahaado kadib waxa la soo gaarsiiyay xilli fiican waxa lagu doortay magaaladan iyadoo awal la aadi jiray Djibouti iyo Kenya iyo sabab ah magaaladan doorasho xaq ka dhacday waxa lagu doortay madaxweyne Xasan Sheekh meeshii uu ka sii waday
gobolkan waa ogtihiin ibra laga soo bilaabo laakiin meel fiican la keenay isbedelada faraha badan ee dhanka maamulka ah ayaa iyaguna meesha ka saaray dhowr mashruuc oo hirgeli lahaa waxaana mashruucyada burburay kamid ahaa mashruucii nalaynta caasimadda oo markii ugu horeysay qaar kamid ah wadooyinka uu ka hirgeliyay maxamuud axmed nuur tarsan oo ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir xilligii dowladii shariif sheekh axmed horta waa ogtihiin solarka waxaa bilaabay gudoomiye tarsan iyo ku-xigeenadiisa iyo maamulka markaas shaqeynayay asaa ku dhiirigeliyay magaaladan baalayaasha waa la siibanaya markaa imaanayna nal ma lahayn asaa ku dhiirigeliyay in laamiyadoo dhan solar laga dhiga annaga xitaa waa la yaabanay gudoomiye ilaalinaa idinka ilaalinaa mas-uuliyad idinka saaranta uu dhahay agaasimow lahay gobolka banaadir oo nalalkaas ka shaqeeyo nalalka boora qariya boorka markuu qariyo isla markii agaasimaha la wacaa isla habeennimadii lambar heber 43 dansan 45 dansan saasaa la sameyn jiray agaasimaha wuu imaan jiray solarkaas waa la nadiifin jiray dib saas loogu shaqeyn jiray hadda agaasimo taga iyo qof ka shaqeeya iska dhaafa gudoomiyaasha degmooyinka ma dhaafaan jidka geejecel ku teedsan ma dhaafaan geejecel wixii xagga ka ah waxaa loo yaqaanaa Hirshabeelle shacabku u yaqaaniin gudoomiyaalka waxaa la rabaa inay shaqeeyaan degmada tagaan waaxaha tagaan dadka baahidooda ogaadaan nalalka dansan ogaadaan haddii uu shaqeyneen gudoomiyaha gobolka controlna uu jirin inta badanna aan ognahay in gudoomiyaal diaspora oo kor laga keenay iyo kuwa kale aan shaqeyneen in gobolka nin jeclaysi loo geeyay dawladda markasta waxay dhahdaa musuqmaasuq ay ka hadlaan aadan ugu faraxsanahay dadka xoolaha in dawladda dhunsada in musuqmaasuq la dhaho lagu soo qabtay waxa ka sii daran cadaalad darrada laftirkeeda musuqmaasuq ay kamid tahay cadaalad darrada wax walba ka daran haddii cadaalad la helo magaaladan way dhisme dadka xitaa niyad ahaan ay u dhismayaan shacabka markay arkaan hoggaan daacad oo dalka iyo dadka jecel oo wadani ah oo habeen iyo maalin dadka u taagan oo shacabka ku dhex jiro waa ogtihiin jidka Sodonka annaga waxaan gaarnay jidka warshadaha gudoomiyaasha dhan ina inta isku keenno fanaaniinta geeyna qoomaal oo kale waa geeyna heeso ku qaada oo gobolkan banaadir loogu qaaday isboortiga tartan ugu qaban jirnay meesha isbartiibooyinka hadda lagu egyahay oo la dhaafi laayahay oo ciidamada inta la keen la isku wareejinayo annaka iyo gudoomiyaheena soconaa waxaan sameyn jirnay tartan laamiga ilmaha xaafadda ugu qaban jirnay banooniyaal u qaybin jirnay si dadka ay u arkaan inuu maamul ka jirta magaaladan gudoomiyaashooda garab taagan yihiin laakiin haddaanan dadkii loo tagaynin wax loo sheegaynin in wax qabad ma jiro gobolkan habacsanaana ku dhacday nasiib darra ku dhacday in shacabkana waa iska aamuseen ba afkiya juuqda gabay canshuur keena la dhahaa ayagoo maqanay canshuurtii dhiibaan laakiin canshuurtoodana wax looguma qabto gobolkan wuxuu u baahan yahay qof tarsan oo kale u baahan yahay uma baahno qof iska jiifo gurigiisa oo jaakada inta gashto dhaho gudoomiye ah idaacada ka hadla idaacad uma baahna hoolo gobolkan u baahan yahay waa aragteen dad masaakiina guryahooda laga heystaa qeylinayo oo waayeelo ah dad badan aragna guryahoodii inta la xooga la dhisanayo taas musuqmaasuq ma aha miya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay musuqmaasuq lacag la xada kelime xilalkan nin jeclaysiga ah oo qof aan wax qabanayn loo dhiibayo qof aan shacabkiisa xitaa arki karin inuu gudoomiye u yahay iyo inuu gudoomiye waaxid yahay aan kala garanayn musuqmaasuq kaasa la dhahaa in aniga ma arkin adeeg hadda wax laga qabanayo iyo bulsho loo adeegayo sababtoo bulshada iyo gobolkiiba isku ma xirno gobolka wuxuu ka bixi lahayaa xaflado gobolka dhexdiisa lagu dhigo lacagtii dadkan wax loogu qaban lahaa canshuurta laga qaaday wuxuu ku bixay dad qurba jooga la soo dhaweynaa waxa lagu leeyahay cawada 500 oo qof oo qurba jooga casho loo sameeyay gobolkan dadkii u soo shaqeeyay oo qaarkood u naafoobeen waaragta Axmed Daaci oo kala hadda degmada wax dhibaato kama jirin dad lagu ma dili jirin boob kama jirin waa nin gobolkan u soo shaqeeyay oo ku naafoobay wuxuu mudan yahay in uu guna qaato qofkii maanta dalkan u soo shaqeeyay oo eber ka soo bilaabay oo guna qaadanayna waxa lagu leeyahay 500 oo diaspora la soo dhaweynaa cawada casha waxa ku baxay 30 40 ku baxay marka gobolkan shaqadiisii ma haya shaqo aan loogu talagalin oo haya insha Allah waxaan rajaynayaa isbedel inuu yimaado isbedelkana waxay tahay qofku ka liita in loogu eexdo gobolkan ma aha in loo fikiro gobolkan yaa badbaadin karo yaa samata bixin karo gobolkan kala wareeg bas la dhahayo oo jidadka markii la xiraa xitaa waa aragtay uma tirsana dawladda iyo gobolka banaadir wixii geejecel ka shisheeya lama xiro dawladda kala ka taliya isleedahay waxa la xiraa jidka Sodonka iyo jidka dekada la xiraa cid looga aabayeelo iyo cid kale ma jirto oo ogaan kara amnigana waa aragteen maanta meesha uu marayo
ilays la'aanta laamiyada ay nalalku ka dameen iyo boholaha adkeynaya marinka gaadiidka ayaa ah kuwa ay ka siman yihiin inta badan wadooyinka waaweyn ee dhexmara caasimadda. wadooyinka wadnaha sodonka warshadaha iyo xaafadaha ku deedsan oo aan howlo shaqo ku tagnay xilli habeen ah ayaan kula kulmay dhalinyaradan oo ku caweynaysa bartamaha isgoysada wadooyinkaasi oo uusan ka muuqan ilays aan ahayn kan goobaha yar ee ganacsiga. waxaana dhalinyaradani ay sheegeen in maamulka gobolka Banaadir iyo adeegyadiisuba aysan soo dhaafsiisnayn wadada Maka al-Mukarrama. waxaad aaminaysaa bulshadan inay u baahan tahay leer qof kastana uu u baahan yahay muddo Soomaalida waxay tiraahdaa meel aan iftiin ka jirin kama nololba kama jirto nolosha aadamiga waxyaabaha ay uga baahan tahay waa in la helaa يعني adeeg koronto waa in la helaa inta kastaba ayagoo ka jiraan ee haddana goobo ganacsi ay yihiin haddana bulshada looma fiiriyo iftiinkana bulsho ahaan ka muslimiin ahaan meel fiican ay nooga taagan tahay يعني nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay waxa ugu sareeyo kelimada tawxiid la ilaaha illa allah waxa ugu hooseeyana izaalatu adaa can dariiq kayf ku arki kartaa wada markaa maray sidoo kale qodaxdii ama sheegii ku dhibaateenayo baabuweena iska jiro cishihiisa kale inuu aada laga yaabaa qaabku ku arki lahaa waxaas iftiina loo baahan yahay leerarka dhanad way dansan yihiin xoogaa waxa u moodaa dib u qaabin hoose inuu ku jirto wallahi hadda wadada markii aan Maka al-Mukarrama marto iyo wadada wadnaha sodonka marka aragto labadaas wada aad iyo aad loo hakraday bismillaah ano magaca ku bilaawaa Khalid Xasan halka joogno laamiga warshadaha gaar ahaan traq siyaarka والله deegaanka xaaladiisu waa iska caadi waa iska normal wax dhibaato kama jiro sida muuqata meeshu waa mugdi oo adeegyadii gobolka Banaadir ee nalalka iyo wixii kama jiraan maxaa dhacay sax way waxaas waxa lagu baahan yahay in dawladda hoose habeeso waatan si ay u wada magaalada dhan leer ahaan iyo soolarradii ma shaqeynayaan waa laamiga waa mugdi ceenka way waxa laga codsanayaa dawladda hoose inay naga habeeyaan oo dhalinyarada iyo haaleed maaliil isku caawin lahay waa ka mugdi waa ka jiro muuqaalada dhismayaasha ay ganacsatadu ka hirgelisay agagaarka xayndaabka yar ee maamulka gobolka Banaadir uu ku soo koobay caasimadii ummadda ayaa ah kuwa kaliya ee ku faanaan gudoomiye walba oo soo mara gobolka Banaadir. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariso oo ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ee xilligan waxa wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya loogu magacaabay xilka gudoomiyenimo 21 Janaayo ee sanadkan kadib xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiyaha xilligaasi Taabid Cabdi. haddaba maxaa u qabsoomay gudoomiye Yariso dhowrka bilood ee uu xilka hayo والله waxaan isleeyahay dad badan oo xajka u diray oo xajka aan awoodin taas oo canshuurtiina lagu diray dadkana waxa ka qaldan in canshuur lagu xajin karin qofku wuxuu shaqeysto dhididkiisa xaj ku tagi kara aniga wax qabad kale oo Yariso maanta aan ku amaani kara ama aan sheegi karo mala hadaan sheego shacabkan aan dulma shacabkan waa shacabkayga gobolkan waa ka soo shaqeeyay ebraan ka soo bilaabay hadda anoo xilhayna waxaan ku faraxsanahay gobolkan inuu dego oo nabad aan helo oo anoo gaarigayga wata aan magaalada maran ku faraxsanahay marka Yariso wax qabad awal hore wax uma qaban haddana nin wax qabanayo uma eko maalin dhow waxaan arkay saddex qof oo dulman oo marka hore baan Facebookyada inta ka aragna aan ka hadalnay asoo la kulmayo gudoomiyaha gobolka Yariso macna ma yeelanayso saddex qof oo la kulmo waa muhiim waa in la kulmo oo hantidooda loo celiyo waa dad masaakiin ah waa dad la dulmiyay laakiin 3 milyan iyo baraha gobolkan degan inta badan way dulman yihiin lalamana kulmaayo lalamana arkayo waxaan isleeyahay dadkaas xamarweyne deganaayeen way u fududaatay inuu la kulmo sababtoo xafiiskiisa xamarweyne ku yaalo laakiin ma awoodo gudoomiyaha gobolka qof huruwa ku dulman iyo qof ka xaqshiiqal ku dulman inta degmada dhex fadhiisto inuu dhaho qof hebel waa dulman yahay hal ii keeno awoodaas ma laha gudoomiye Yariso oo ilaa hadda aysan jirin wax qabad la taaban karo oo uu ku soo kordhiyay howlaha gobolka marka laga reebo amarra aan hirgelin oo uu dul dhigay ganacsato iyo dadka deegaanka ayaa wajahaya cabashooyin fara badan oo kaga imaanaya qaybo badan oo kamid ah bulshada Muqdisho kuwaas oo ka cabanaya burbur lagu sameeyay dhulkooda waa la dhibaa shacabkan canshuurta lagu dhibaa nabadgelyada lagu dhibaa si kasta way u dhiban yihiin qaara guryahoodii la iska dhistay qaada guryahoodii la heystaa suuqyadii hadda la dhisaa suuqa degmada warta ku dhagan Injineer Yariso asaabixiyay markuu dhahayo jardiinooyin hala dumiyo oo maamuladii ka horeeyay bixiyeen uu dhahayo jardiinooyinka canshuurtooda gobolka Banaadir lagu shubaa hadda suuqa warta nabad oo aan dhisnay
oo qudaartii hilibka ugu talagalnay ilaa 4 qoys ilaa 5 qoys oo hadda soo siiyay oo qaarkood asaga la shaqeeyaan oo dhisay mana bixin kara dhulkii dawladda waa madaxweynahan wuxuu yiri markaan imaado kadib wax dhul dawladooda la bixinayo ma laha qoraal oo qoray haddii madaxweynaha uu raali ka yahay yariiso hadda dhulkii dawladda inuu dib u bixiyana kullay la xisaabtanka oo ku jirta musuqmaasuqa ka mid tahay halkan oo ah isgoyska Taleex oo qudhiisa aysan ka muuqan adeegyada maamulka gobolka Banaadir ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeennii aan ugu kurgalayay xaaladda xaafadaha la iloobay ee magaalada Muqdisho